إنا لله وإنا إليه راجعون وجدين ميدad kalkan waxa ka dhacay shil laga yaabo idkaas oo jeedin gaaridan oo meeshan ku qarxay migrate oo jeedin xagga dadku si doobiyihiin ilaahu nabadbaadi qof hada meesha ku dhintay oo kamid tahay gabar loo munish ما شاء الله gacanteeda aad ku qurxinayhay man idin amaanay oo ay taasiin makeup marinayso in sha Allah numberkeeda waa idin soo dhigay tiishii makeupkeeda muhiim u ahaa bulshada Soomaaliyeed ayaa goordhow ku geeriyooday shil ka dhacay dalka Kenya waxaana xubnahaasi ka mid ahayd gabar ka mid ah gabdhaha lagu jeclaa xagga dilista rubaayadaha waxaana gabadhan ay ahayd gabar aad u asluub badan afgaaban fanaanada weyn ee qaaliladanna waxay sheegtay inay ka baxday fankii asoo la xiriira shilka dhacay iyadoona ka codsatay shacabka Soomaaliyeed in ay ugu soo duceeyaan go'aankan ee qaadatay waxayna ka hadashay arrimo cajiib leh oo la tusay kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaad leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo subxaan allah subxaanahu wa ta'ala aan kaga baryana umuure leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subxaanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeyo inta awlaadonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdoonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba oo muuqaalka sheerta ku qabta la gareeyana waxa rabbi subxaanahu wa ta'ala aan kaga baryana mal adduunyo ay sifileen inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiya dambigood iyo dambiga waalidkoodana ee boqol dhaafar rabbi subxaanahu wa ta'ala uu ku cazuma jannatul firdaws ala xaasidka waxa leenahay wa min sharri xaasidin ida hasad al xaasid لا يفلح shilka dhacay goordhaweed dalka Kenya waxa ku geeriyooday xubno muhiim u ahaa bulshada kuwaasoo magac ku dhax lahaa dhanka social media waxa kamid ah gabar lagu magacaabi jiray Allah u naxariistee rabbi subxaanahu wa ta'ala dambigeeda ha dhaafo Munisha Mustafa ama Muna Mustafa waxaana gabadhan caan ee ka ahayd baraha bulshada gaar ahaan barta YouTube-ka iyo sidoo kale TikTok-ga ayadoona sidoo kale ay wareysteen warbaahin caalami ah kuwaasoo la yaabay habka waxay u jiso hab aad u asluubaysan isla markaana waxay gabadhan Muna Mustafa Allah u naxariistay ay soo jiidatay malaayiin shacabka Soomaaliyeed qulubtooda kuwaas oo ka helay qaabka asluubaysan ee u jirtay rubaayadaha laakiin waxa dhamaaday waqtigeeda waxaana oofsaday Allah subxaanahu wa ta'ala ayadoona ku dhimatay shil dhawaan ka dhacay ama goordhaweed ka dhacay gudaha dalka Kenya Muna ayaa la sheegay in gaariga ay saarnaayeen ayada iyo dhowr qofood oo kale in gaari kale uu ku dhacay taasna ay keentay in halkaasi ama Munisha inay halkaasi ay ku geeriyooto waxaana sidoo kale la geeriyooday wiil kale oo lagu magacaabo Sakariye kaasoo caan ka ahaa barta Soomaalida qaarkeed ee isticmaashay loo yaqaan TikTok Munisha Mustafa ayaa waxay ahayd gabar aad u asluub badan ayadoona isla markaasi si wanaagsan u jili jirtay rubaayadaha waxaana rubaayadihii ay jili jirtay laga heli karaa barta YouTube-ka iyo waliba bartan aan ka hadlaynay Facebook iyo meelaha kale ee ku kulmaan bulshada waxaana rubaayadaheeda ay ahaayeen kuwa ay ku dheehan yihiin murti aad u badan waxaana wax lagu tusi jiray shacabka Soomaaliyeed ayadoona rubaayadahaasi ay u muuqdeen kuwa lagu dhiirigelinayo bulshada Soomaaliyeed horumarkooda iyo waliba bulshada qaarkeed inay ka waantoobaan dhaqamada xun ay sameeyaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto gabadhan walaasheena goordhaweed ku dhimatay shilka gaari ee ka dhacay dalka Kenya dhanka kale fanaanada qaaliladan oo kamid ah fanaaniinta waaweyn ee Soomaaliyeed ayaa goordhow barteeda YouTube-ka muuqaal ay soo dhigtay waxay ku sheegtay inay ka baxday fankii gabi ahaanba ayadoo isla markaasi sheegtay in Allah subxaanahu wa ta'ala ay u tooba keentay waxayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka barisay in dunuubteeda uu dhaafo ayadoona isla markaasi ka codsatay shacabka Soomaaliyeed inay u soo duceeyaan inay ugu soo duceeyaan go'aanka ay qaadatay fanaanada qaaliladan oo sii hadlaysay waxay sheegtay in gabadha hadda dhimatay xalay ay wada joogeen goob caways ah ama goob aroos ah halkaasina ay kaga qayb galeen xaflad aroos haddana loo soo sheegay geerideeda isla markaana loo sheegay in Muno ay go'day isla markaana dhibaato culus uu ka soo gaaray shilka gaari ee dhacay taasna ay keentay in aakhirkii Muna Mustafa inay u geeriyooto dhaawacaasi waxayna qaaliladan ay tilmaamtay in fanka ee gabi ahaanba ay ka baxday isla markaana ay iska dhaaftay hoolihii fanka waxayna ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed in muuqaalkaas meel walba ay gaarsiiyaan isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay isku diraan muuqaalka ee soo duubto ku aadan ama ay ku cadeynayso in hoolihii fanka gabi ahaanba ee faraha kala baxday waxayna ku celcelisay in dadka Soomaaliyeed ay ka codsanayso inay u soo duceeyaan in Rabbi subxaanahu wa ta'ala uu ku sugo go'aanka ay qaadatay